Maxay tahay sababta ilmaha qaarkood ay aad u ooyaan habeenkii? Oohinta ilmaha habeenkii ma aha arrin iska dhacda, waa qaab uu ilmuhu isku muujiyo maadaama uusan weli awoodin hadal ama ismuujin kale. Cilmi baarista caafimaadka carruurta waxay caddeeyeen in oohinta habeenkii ay inta badan la xiriirto korriinka maskaxda, dareenka, iyo isbeddellada jirka ee ilmaha. Sidaa daraaddeed, waxaan mawduucan ku eegi doonnaa bal waxa ay tahay oohinta habeenkii ee carruurta. Oohinta ilmaha ee habeenkii waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee waalidiinta soo food saarta. Waxaa jira sababo badan oo kala duwan, laga bilaabo baahiyo jireed ilaa kuwo dareen emotional. Midda koowaad, baahiyaha aasaasiga ama physical needska waxa loo yaqaano. Inta badan ilmaha yaryar waxay u ooyaan sababo fudud oo jirka la xiriira. Midda koowaad waa gaajo. Tani waa sababta koowaad. Caloosha ilmaha yari waa mid yar, si dhaqsana way u faaruqdaa. Tan xigta waa xafaayadda. Haddii ay qoyaan tahay ama ay wasakh tahay ama cunuga isku kaajay ama uu ku saxroodaba, waxay ku keentaa raaxad darro iyo cuncun. Tan xigta waa heerkulka. In ilmuhu aad xilli kuleel ah uu cunuga markaasi dareemo kuleel aad u daran ama uu aad qabow u dareemo, waxaa la doonayaa in aad hubiso in laabta ilmaha ama qoortu ay diiran tahay laakiin aysan dhididsaneen. Tan xigta waa xanuunka caloosha iyo gaaska ee colic acidka loo yaqaano. Haddaba, ilmo badan, gaar ahaan kuwa ka yar da'da 4 bilood, waxay la dhibtoonayaan gaaska caloosha ku xidhan. Astaamaha ilmuhu waxa uu isku soo laabaa lugaha, calooshuna way adkaataa. Xalku waa inaad hubiso in ilmuhu daacayo ama daaca sameynayo kadib marka uu ku nuugo, ama si tartiib ah ugu duug caloosha saliid diiran. Midda saddexaad, kabuubyada ilkaha. Marka ay ilkuhu soo baxayaan, badanaa inta u dhaxayso 4 ilaa 7 bilood, ilmuhu wuxuu dareemaa xanuun iyo barar ciridka. Tani waxay keentaa inuu habeenkii ooyo isagoo hurdo ka soo toosaya. Tan xigta ee afaraad waa cabsida kala fogaanshaha ama separation anxiety. Marka uu ilmuhu gaaro 6 ilaa 9 bilood, wuxuu bilaabaa inuu fahmo in hooyada ama aabbuhu ay ka maqan yihiin. Marka uu habeenkii soo tooso ee uu cidna arki waayo, wuxuu dareemaa cabsi iyo cidlo. Markaasi ayuu ooyaa si loogu yimaado. Midda shanaad, riyada iyo argagaxa habeenkii. Carruurta wax ka yar 2 sano iyo wixii ka sarreeyaba waxay ku riyoon karaan waxyaabo cabsi leh. Waxaa jira waxa loo yaqaano night terrors, oo ah in ilmaha isagoo hurda uu aad u qayliyo ama ooyo balse uusan soo jeedin. Haddaba, talooyin ku saabsan sunnada iyo caafimaadka si ilmuhu u helo hurdo xasilooni ah. Marka hore, waxaa wanaagsan in aad ku akhriso ilmaha korkiisa suuratul falaq, suuratul naas, suuratul ikhraas, iyo faatixa iyo aayad kursi ka hor inta uunan canuga seexan. Tan xigta, nidaamka joogtada routiinka waa mid lama huraan ah. Ka dhig waqtiga hurdada mid isku mid ah habeen kasta. Qubays diiran iyo qiso yar ama leyrka oo la damiyo. Cuntada, ha siin ilmaha cuntooyinka sokorta badan leh ama kafeynka sida shukulaatada saacadaha ka horreeya hurdada, maadaama taasi ay ku sababi karto cunuga in uusan xilli hore hurdin. Haddaba, horumarka maskaxda iyo dareenka ee loo yaqaano neurological development. Ilmaha yaryar, gaar ahaan bilaha hore, maskaxdoodu si degdeg ayuu koraysaa. Mararka qaarkood, maskaxda ilmaha waxay noqotaa mid si xad dhaaf ah u shaqaynaysa, taasi oo keenta in ilmuhu ku adkaado inuu si qoto dheer u seexdo. Ilmuhu wuu seexanayaa, balse si fudud ayuu u toosayaa. Ilmuhu wuxuu dareemayaa kacsanaan ama overstimulation. Habeenkii ayuu ka sii darayaa maadaama jawiga uu aamusan yahay. Hay'adaha sida AAP iyo Mayo Clinic waxay sheegeen in tani ay tahay mid caadi ah, gaar ahaan inta u dhaxayso cunuga marka uu dhashay ilaa 6 bilood. Tan xigta, isbeddelka habka hurdada. Carruurta yaryar, habka hurdadoodu way ka duwan tahay midda dadka waaweyn. Waxayna leeyihiin hurdada fudud, light sleep oo badan. Haddaba, kala guur badan oo hurdada.
marka uu ilmuhu ka guurayo hal marxalad hurdo una gudbayo mid kale. Wuu toosi karaa haddii uusan isdejin, wuu ooyayaa. Hay'adda UNICEF iyo hay'ado kale ayaa inta badan arrimahan wax ka qoreen. Midda xigta, xanuun qarsoon ama uncomfortable raaxo darro uu cunuga dareemi karo. Mararka qaarkood oohinta habeenkii waxaa sababa xanuun aan si fudud loo dareemi karin sida dhagaha oo xanuuna iyo infection, hunguriga oo gubta ama acid reflux oo cunuga dareemo, qabow ama qandho yar oo kaar yar korkiisa ku bilaabanaysa. Ilmuhu maalintii waa uu is ilaawin karaa, balse habeenkii marka uu seexanayo xanuunkaasi waa uu kasii darayaa. Hay'adda Caafimaadka Adduunka waxay ku talisay in haddii oohintu noqoto mid si joogto ah oo aan caadi ahayn, in ay muhiim tahay la tashiga dhakhtarka ama aqoonyahan caafimadeed si bal loo xaqiijiyo loona ogaado waxa dhabta ee canuga dhibayo. Haddii aan sii ambaqaadno qaybaha kale, waxaa ka mid ah xasuusta iyo barashada cusub. Ilmuhu marka uu maalintii barto waxyaabo cusub sida gurguurasho, socod, hadal cusub, dad cusub oo uu arkay, maskaxdiisu habeenkii ayay dib u shaqaysaa si ay u kaydiso xogtaasi. Tani mararka qaarkood waxay keentaa hurdo la'aan iyo oohin. Cilmi baaris caafimadeed oo horumarka ilmaha Child Development Studies ayaa lagu xaqiijiyay arrimahan. Sidoo kale, deegaanka iyo jawiga hurdada. Hurdada ilmuhu waxaa saameyn ku leh iftiinka badan, sawaxanka ama buuqa dadka agagaarka canuga ku hareeraysan, iyo carafta ama urka xoogani, sariirta ama gogasha oo uusan cunuga raaxo ku dareemin. Ilmuhu badanaa habeenkii ooya sababta jawiga hurdadu ma aha mid ku habboon. Hay'adaha waxay ku taliyeen in ilmaha lagu seexiyo jawi degan, iftiin yar iyo hawo nadiif ah. Haddaba talooyinka isku dhafan caafimaad iyo diini: dejinta ilmaha ka hor hurdada, qubays jiiran iyo sidoo kale duugis jilicsan, cod hoose ama hooyada oo la rabo in cunuga si hoose ay ugu haysto. Tani waxay ka caawisaa maskaxda ilmaha inay fahanto in waqtiga hurdada la gaaray. Culimada Islaamka iyo waalidiin badanna waxay isku raaceen in mucaadateynka ay ka mid yihiin waxyaabaha inta badan xasilooni nafsiyadeed canuga uu ku dareemayo marka quraanka, maadaama uu yahay daawo qalbi iyo mid kaleba. Iyo sidoo kale duugis jilicsan, cod hoose ama hooyada oo la rabo in cunuga si hoose ay ugu haysto. Tani waxay ka caawisaa maskaxda ilmaha inay fahanto in waqtiga hurdada la gaaray. Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka maanta.